ayaa waxaa madaxweynuhu kula dardaarmay inay ku dadaalaan sidii aqoonta ay haystaan mid ka badan ay u kasban lahaayeen. runtii waxaan ku faraxsanahay maanta inaan idin soo booqdo maalintii ugu dambeysay oo imtixaankii ugu dambeeyay aad qaadanaysaan Soomaa. waxaan idin rajaynayaa imtixaanka qof walba halkan fadhiya inuu keeno buundada ugu fiican. waxbarashadu waa qofka noloshiisa, waa indhaha qofka, waa iftiinka bini'aadanka, waa horumarka qofka bini'aadanka ah. waa fahamteen Soomaa? waxbarasho qof aan waxbarasho lahayn horumarkiisu waa kooban yahay. marka waxaan rajaynayaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo iskuul sare inaad tagtaan oo aad baastaan oo buundo fiican keentaan. iskuul sarena aad jaamacada ka aadaan. jaamacadaha markaa dhamaysaanna aad tihiin mustaqbalka dalkan uu leeyahay. maxaa yeelay mustaqbalka dalkan waa idinka. shaqooyin wanaagsan qofkii dawladda u shaqeeya, qofkii private u shaqeeya, qof walba inuu leeyahay door cayiman oo wanaagsan uu nolosha shacabka, nolosha dalka iyo horumarka dalka wax ugu kordhinayo. madaxweynaha oo la hadlay qaar ka mid ah ardada isu diyaarinaysa imtixaanka guud ee dugsiyada sare ee dalka ayaa waxa uu kala hadlay ahmiyadda dawladda uu hogaamiyo ay u leedahay horumarinta waxbarashada dalka iyo in waalidiinta Soomaaliyeed aanay marnaba ka warwalin in ubadkoodu ay helaan waxbarasho iyo in kale. annagana muhiimad weyn ayay noo tahay, muhiimad weyn ayay noo leedahay, ahmiyad weyn ayay noo leedahay inaan idin siino waxbarasho tayo leh. maxaa yeelay waxbarashadu waxa weeye waa aasaaska qofka bini'aadanka ah. marka hooyo walbaba iyo aabbo walbaba inaysan marna ka walwalin waxbarashada carruurtooda. insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo qof walba oo Soomaaliya oo dhalinyaro ah oo maxaan ku raahdaa daadiina oo kala waa inuu iskool aado, waa inuu iskool u kalaho, waa inuu qalin buug qaato, waa inuu wax barto. qaar ka mid ah ardada halkan ku galayay imtixaanka dugsiyada hoose dhexe iyo sare ayaa muujiyay sida ugu faraxsan yihiin la kulanka madaxweynaha iyo dhageysiga dardaarankii uu siiyay. sharaf weyn oo tahay aad iyo aad waxaan sharaf weyn oo inaan ku faraxno madaxweynaha Soomaaliya inuu noogu yimid iskoolkeena. wuxuu nagu dardaarmay inaan waxbarashada si fiican u sii wadayno inuu nala sii